magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ka bilowday kulamo lagu hadlayo sidii ciidanka Itoobiya looga saari lahaa goobaha muhiimka sida madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ee sida kumeel gaarka magaaladaasi ugu shaqeeya iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha magaaladaas oo ah laba meel oo marin ahaan muhiim ah in ay ciidanka Itoobiya xilligan ay sii joogaan tallaabadii ugu horeysay ee ka dhana ciidanka Itoobiyaanka ayaa la qaaday iyadoona ciidamadaasi loo diiday inay u dhawaadaan goobaha loo cayimay wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee magaalada Baydhabo taga iyadoona wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay wadaan ciidanka Itoobiya oo la xiriira sidii ay ugu bixi lahaayeen magaaladaasi Baydhabo oo ah xarunta kumeel gaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankii ugu dambeeyay ee saraakiisha ciidamada amniga kana soo muuqdeen taliyaha ugu sareeya ciidanka militariga taliyaha ugu sareeya ciidanka booliska saraakiisha ciidanka gaarka gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida taliyaha ugu sareeya ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale ayaana laga waayay ciidanka Itoobiya ee jooga magaalada Baydhabo sida ay sheegeen mas'uuliyiin iyo ila kala duwan wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in digniin culus loo diray ciidanka Itoobiya qudhooda iyadoona la sheegay inay ka mid yihiin ciidamada magaaladaasi jooga waxaana sidoo kale la dejiyay goobo gaar ah oo ka baxsan dhanka iyo magaalada Baydhabo ciidan gaar ah oo booliis ah oo sugaya amniga magaaladaasi ayaa loo dhiibay ciidamada qaaska ee ilaalada u ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee koofiya casta loo yaqaano ayaa waxa ay sameeyeen tallaabooyin xooggan iyagoona amniga guud ee magaalada Baydhabo kala wareegay ciidankii Itoobiyaanka ee gacanta ku hayay madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sabab la xiriira in amniga madaxweynaha ay sugayaan ciidankaasi garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ayaa waxa la dejiyay ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa koofiya casta ee sida gaarka u waardiyay madaxweynaha iyo ciidanka kale ee gaashaaman kana tirsan nabad sugidda gaarka ee ciidanka gaashaan loo yaqaan kuwaas oo maalmihii u dambeeyay lagu daabulayay dhanka iyo magaalada Baydhabo ila muhiima ayaa inoo sheegay in arimahan oo idil ay yihiin qorshooyin kala duwan oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu talagashay inay ka hortagto damac walba Abiy Ahmed deegaanada Koonfur Galbeed ka soo gala sidaas oo kalena deegaano ka tirsan gobolada dalka in ay dowladdu wado qorshe weyn oo arimahaas ay kala shaqeynaysaa dhanka iyo Hiiraan qudhoodu waxa bilowday dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ciidanka Itoobiya looga saarayo marinada iyo goobaha muhiimka sabab la xiriira in dhawaan ciidamo u dhashay dalka Djibouti hir walaal la geeyay deegaano ka tirsan dhanka iyo gobolka Hiiraan ujeedkoodu yahay qorshe isku xiran marka la eego Muqdisho Djibouti Asmara Qaahira iyo sidoo kale Ankara iyadoona wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in markaan uu jiro isbahaysi xooggan oo ka socda dhanka iyo dalal kala duwan oo gobolka dhaca dowladda federaalka Soomaaliya oo aad u taqaan ciyaar suuqnimada Itoobiya iyo xukuumadda Abiy Ahmed oo mar walba suuragal ka dhigi karta dhacdooyin inta badan sidan oo kale dalka laga diiwaan galiyay ayaa dowladdu waxa ay qaaday dhaqdhaqaaqyo xooggan oo arimahaasi la xiriira si ay uga hortagto wax walba oo ah damaca Itoobiya ay wado wafdiga ballaaran madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hogaaminaya ayaa warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo la xiriira dhankaasi iyadoona saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dowladduba ay tilmaameen in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo la xiriira arimahan taa oo keenaysa in mas'uuliyiinta iyo saraakiisha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa ee mas'uuliyiintan ay sameeyaan sargaal saro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dadaalada iyo qorshooyinka kala duwan ee socdayeen kuwa intooda badan lagu muujinaya xaddiga awoodeed iyo dhaqdhaqaaqyadaasi iyadoona mas'uuliyiinta dhanka Itoobiyaanku ay wadaan isku dayadii ugu dambeeyay oo ay ka sameynayaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan dhinaca iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya mas'uuliyiinta dowladda federaalka ayaa qudhoodu waxa ay sheegeen in ay wadaan abaabulo kala duwan si loo gaaro hadafkaas dowladda ayaa waxa ay dejisay maalmihii u dambeeyay in ay ka saarto howlgalo culusna sameyso deegaanada qaarkood ciidanka Itoobiya
taasoo keentay in xaddiga awoodeed iyo kan siyaasadeedba ay sii kordhaan haddii ay ahaan lahayd in ciidamadu ay bilaabaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo arrimahaasi la xiriira. ila muhiima ayaa u sheegay warbaahinta Xuuraansi in saacadii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyadoona dowladda ugu dambeyn ay sheegtay in ay dalka ka saari doonto ciidanka Itoobiya ee wajahaya xaaladaha adag kadib markii siyaasiyiin u dhashay waddanka Itoobiya ay sheegeen in arrinta Koonfur Galbeed gacantooda ka baxday ay ahayd mid aanay u wanaagsaneyn dhankooda marka la eego xilligan dowladda federaalka iyo sida ay ugu xoogeysanayso deegaanada maamulkaas waa sida ay hadalka u dhigeen. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuuraansi ku daawo waad ku maasantahay daawashadii la socodka wararkayga.